بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka bilaabaynaa markaasi hypervisor ka rabnaa inaan isla faano waxaan rabnaa markaasi inagoo computerkeena wadana Windows 11 ka ama Windows 10 ka inaan ku dul dhisno wax loo yaqaano virtual machines computer macmala oo aynu laababka ku sameeyno waayo waxaan rabnaa inaynu laababkan sameeynayna inay noqdaan real life environment sidii waxaad adigu isticmaalaysid computerka Linux ku jira mid la mid ah marka laba option baad adigu isticmaali kartaa inaad hypervisor isticmaashid inaad computerkaaga Linux ka dhigtidba oo Linux ku shubtid labadaba wad kartaa marka aan hypervisor-ka ku fahansiyo habka fudud ee aad machine macmal u sameyn kartid aynu practical-ka ku sameynayno ee aynu inaguna sidoo kale laabka ku adeegsanayno marka koobaad waxaad ka soo qaadaa inaan haysano PC-geenan caadiga aynu hadda isticmaalayno machine-ka rasmiga aynu isticmaalayno ee Windows 10 ama Windows 8 ama Windows 11 waxaan soo qaadanaynaa wax loo yaqaan hypervisor-ka hadda ka hadli doonaa oo qodobkan u dan leeyahay ayaa weeyaan ka bacdi hypervisor-ka markaan soo qaato waxaan soo qaadan doonaa machine yar oo iyaguna dhowran soo qaadan doonaa okay mashiinada yar waxay noqon doonaan mashiino dhowr ah oo kala duwan magacyo kala duwan leh haday doonaan OS systemyo kala duwan leh marka aan ku fahansiyo halkan markaas ugu horeyn aan soo qaadano physical machine-keena aan haysano ee tusaale ahaan Windows 11 sidaan aniga igu jira Windows 11 baad arkaysaa aniga halkan igu jiro Windows 11 kaygan waa physical machine-kaygan muxuu leeyahay physical machine-kaygan wuxuu leeyahay hard disk buu leeyahay wuxuu leeyahay RAM wuxuu leeyahay sidoo kale CPU ayuu leeyahay wuxuu sidoo kale leeyahay wax loo yaqaan network interface card ayuu leeyahay oo internet-kan ka isticmaalayo all that resources aan haysto ayaan waxaan la share gareynayaa waxaan la soo degayaa hypervisor oo maxaa tahay markaas hypervisor-ku waa concept-kan rabnay inaan fahanno hypervisor wax kale lama yiraahdo waxa weeyaan waa shay adiga resource-kaaga aad haysatid ku badinaya oo aad ka sameyn kartid waxyaabo kale oo khiyaaliya maxaa kamid ah matalan hypervisor-iska ugu caansan waxa kamid ah VMware ka loo yaqaan waa ka favorite-kayga ee aan anagu isticmaali doono ama sidoo kale VM-yada kale waxa kale la mid ah inaad isticmaashid mid loo yaqaan virtual box mid loo yaqaan virtual box ayaa loo yaqaanaa virtual box-kaasina isna aan idhaahdo halkan virtual box labadaas ugu caansan Microsoft-na iyaguna qaar bay leeyihiin qaar kalena way jiraan oo aad u fara badan laakiin labada ugu caansan ee aan kugula talinayo inaan la soo degno si aan iskula socono waa VM-ka marka hypervisor-keeni baa halkan yimid hypervisor-ka soo qaadatay waa maxay waa VM baad matala soo qaadatay VM-ka aad soo qaadatay waxaad ka sameyn doontaa markaasi virtual machines kala duwan virtual machine-kaasi Windows 11 inuu yahay baa dhici karta ama Windows 10 aan idhaahdo for example virtual machine kala aad halkan soo qaadanaysaa oo labaad oo aad isticmaalaysid tusaale ahaan network-ka oo GNS3 oo kala aad ka dhigaysid VMware kala halkan aad soo qaadanaysaa sidoo kale Mac adiga ku jirta inaad isticmaashid Mac kuwa loo yaqaano computerada ama kuwan maxaa la yiraahdaa Apple soo saarto ayaa laga yaabaa inaad u jeceshahay iyasna mid baad ka samaysanaysaa waxaan ka samaysanaysaa sidoo kale mid Linux ayaa sidoo kale aad samaysanaysaa oo maanta kaynu sameynayno marka mid kasta machine kasta resources-kaagan hard disk-ga leh RAM kale CPU-gaaga leh network interface-kaaga leh ayuu la wadaagayaa marka sidaasi ayuu shaqeeyaa hypervisor software-ka rabnay inaan soo dejisanana waxa weeyaan VM marka waxaan tagaynaa dhanka iyo internet-ka ayaan tagaynaa dhankii iyo internet-kan ku laabanaynaa waxaan tagaynaa markaasi inaanu soo dejisano VMware ayaan la soo degaynaa mar hore sii baaray VMware kaagama baahna inaad is-register gelisid waxyaabahaasi VMware workstation-kan ku dhufanaynaa VMware workstation-kani ayaa halkan inoo imanaya hadda waxaa la marayaa virtual ama aan idhaahdo version 17 ayaa la marayaa marka laba option buu ku kala doorasiinayaa
computerka adigu aad isticmaalaysid sida aniga oo kale ma Windows ba ma Windows operating system baa isticmaalaysaa mise waxaad isticmaalaysaa Linux haddaad adigu isticmaalaysid Linux oo aad Linux-kii virtualization ku sameynaysid kana isticmaali doonta haddaan computer PC sideedan oo kale aad haysatid Windows kugu jiro kale kana isticmaali doonta kan markaan soo dejino kan markaan click siino halkan inoogu soo degaya markaas waxaan kula tarinayaa inaad wifi isticmaashid way datadu hore ayay kaaga dhamaan kartaa marka aniga speedkayga aad buu fiican yahay waxaan helayaa markaasi almost 42 megabit per second ama 50 ayaan markiiba download karaynaya marka kani ayaan markuu dhamaado ayaan wixii oo dhan isku keeni doonaa halkan ayaan ka bilaabaynaa casharka kale ku xiga